Agosto 28-keedii 2014 dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ka dhan ah dalka Kenya kuna saabsan muranka badda u gudbisay maxkamadda cadliga ee adduunka ee hoos tagta qaramada midoobay si loo xadiyo badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa mar kale sheegtay in ay u soconayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya wada hadallo hoose taasi oo ku saabsan in dacwadda laga soo celiyo maxkamadda oo wada hadal ay labada dhinac ku dhameystaan. Dowladda Soomaaliya ilaa hadda arintan kama hadal, haddaba maxaa ka dhalan kara haddii wada hadaladan ay sax yihiin oo ay dowladda Soomaaliya ay qarinayso? Waxaan su'aashaasi hordhignay aqoonyahan Ismaaciil Xasan Xamdule. horta hadday qarinayaan saameyn bay ku yeelan doontaa, dhabarjab aad u weyn bay ku yeelan doontaa. In waxay noqon doontaa ummad badan oo Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba ay ku lahayn kalsooni buuxda inay kala laabtaan. Aniga laakiin ma qabo Kenya xaggeeda ku dhawaaqday, laakiin dowladdan waxaan ka qabnaa inay yihiin kaliya waxaan ku haysano waxay tahay muwaadinimada oo dadka Soomaaliyeed u danqanayaan, dalka Soomaaliyeedna ay u danqanayaan. Laakiin maalintii ku engage garoobaan in ay dib ugu laabtaan MOU-gii dowladdii hore ay ku gacan saartay oo ay door biday in ICJ aado, waxay noqon doontaa waji gabax, waxay noqon doontaa foolxumo, waxay noqon doontaa in hamigii dowladnimo aan qabnay u dhinto. Baarlamaanka ka dhawaajisay baarlamaanka kulay say wax ku yeelan ma aqaano. MOU-gii hore xitaa baarlamaanka lama marsiinin, waxyaabaha dagaalka ay lagu galay kamid ahayd oo la isku diriray waagaas waa 2009kii. Soomaaliya ujeedadeedu waa in la xadiyo badda iyo dhulka ku dhow halka Kenya ay doonayso in ay samayso xariijin bad ah. Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf ayaa qaba inay jirto shaki badan oo ku saabsan wada hadallada ay banaanka keentay dowladda Kenya, isla markaana madaxda dalka ay ka aamusan yihiin wax badan oo u baahan in laga hadlo. Waxaana uu sheegay in arrintan ay keenayso in madaxda dalka ay ku kacaan khiyaano. Bismillahirrahmanirrahiim. Waan arkay warqadaas runtii shacabka Soomaaliyeed waxay ku beertay walwal aad weyn bay ku beertay. Lama garan karo waqtigan xaadirka waxa ku soo beegay in la yiraahdo kiiskii dacwadan dib u noqonay. Xam badan baa jirta, tuhun badan baa jiray. Marka sabab lagu soo cesho iyo sabab la yiraahdo anaga ka hadlayna gaar u hadlayna arrin gaartay maxkamadda caalamka gaartay. Anagu waxaan arkaa khiyaano qaran oo dalka lagu sameeyo anagu arkaa. Aniga kaliya ma ahan shacabka Soomaaliyeed oo arka cid wax garanaysa oo aragta sababta heerka la gaarsiiyay ma garan karaba. Haddaan mar maxkamad lagu kala bixin oo aan bahasha afka la soo afjarin, macnaheedu waxa weeye waxyaabo kale oo qarmo baa macnaheedu meesha ku qarsoon. Marka shacabka Soomaaliyeed siday hadda ka hor uga dhiidhiyeen oo meel kasta adduunka uga banaan bixeen oo ay u muujiyeen qadiyadoodii iyo maaragtay damirkooda u muujiyeen, tanna waa in maanta la muujiyaa. Marka ma garan karaba, qof walba waa la yaaban yahay sababta ilaa waa loo soo cesho iyo dib baa loo soo ceshay oo maxkamadda laga soo qaada iyo muxuu waxyaabo badan la isla dhexmarayo leeyahay dowladdu waxay tiri arrinta anaga dhamaysanayna igad lagu soo wareejiyo inta laga soo wareejiyo haddii gad wax ku qaban mayso adduunkana dal hadduu burburo ama xuduudihiisa nooc kasta ay yihiin waxa mas'uul ka ilaaliya inta dowladaasu wadankaas dowladda sacigiisa ku istaagayo United Nations ka mas'uul ka ah. Marka wax mas'uul igad looga dhigo mas'uul iyo igad dib loogu soo cesho iyo anaga ku hesheeyna ma garan kara macnaheedu waxay tahay. Si loo muujiyo saameynta ay keeni karto arrintan ayuu mar kale sheegaya xildhibaan hore Cabdi Barre Yuusuf in loo baahan yahay in cid ugu horeyso wax lagu weydiinayo ay tahay baarlamaanka dalka iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa ee dowladda loona baahan yahay in hadda ay ka hadlaan. Mas'uuliyadda horta ugu weyn oo arrintan badda waxa bari wax laga weydiinayo مسؤولية قاعدة هي أدية قاعدة هي كوا برلمان الصومالي برلمان كفدرالك وحال الربع أرنتا إني كفي تجنادا أو في رجار ويشان أو أنا أوران أنا أقعدا وحيار عيار أنا أقعدا لبو مسؤولين تدلك وقصر يسمى دحوينها يرسل سعره وأنا أرنتا هدي لكل يهن أو صورة قلت هاي أنا وكم عدين كرعتكم غير كرتملي أرنتا الدولة الدكية كسو يرتي أو إليه ولا هذا البند دولة الصومالي وحكون ما يسين هدي أي شرط arrinta dib hal loo noqdo kiiska maxkamad buu yaala maxkamad baa lagu kala baxaya waxaan maxkamad ahayn hadii la furana hadii waxaad ogaataan Soomaaliya inaad wada qalo u toosiseen. Soomaaliya oo dacwadan gudbisay 2014 waxay ku doodaysaa in xadka hadda jira aanu saxayn xadkan uu ku yaalo dhanka bari ee Kenya. Abdullah Maxamed Ibrahim Goobjoog.